wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland oo sii wada dadaalada shaqaalaha iyo bulshada lagu barayo arrimaha xuquuqul insaanka iyo cid kasta oo dhibaato gaaraysa ayaa maanta oo Talaado ah waxa ay tababar la xiriira sidii howlwadeennada xarumaha dowladda u diyaarin lahaayeen warbixinada ku saabsan xuquuqul insaanka u qabatay shaqaalaha wasaaradaha kale si loo badbaadiyo isla markaana looga hortago xadgudubyada dhaca maalin kasta. shaqaalihii qaadanayay aqoon kororsiga ayaa sheegay in si isku mid ah ay ugu shaqayn doonaan waxyaabaha tababarkan ay ku bartaan kadib 3 maalin marka uu soo dhameystirmo. magacaygu waa Axmed Maxamed Raxmaan ka socda wasaaradda shaqaalaha ee gobolka Jubbaland. tababarkan intuu socdo waxa lagu baran doonaa dhowritaanka shaqaalaha dawladda ee dhowraan xuquuqda aadanaha. waxaa kale oo lagu baran doonaa reporting si looga sameeyo warbixin human rights violation macnaha xadgudubyada dhaca oo kaleeto si looga sameeyo report looga diyaariyo ayaa lagu baran doonaa tababarkan. waxaan filan doonaa in dhammaadka 3 maalin kadib in shaqaalaha wasaaradaha ka socda ayagoo cilmi badan ka faa'iiday noqon doonaan. magacaygu waa Faysan Maxamed. tababarkan waxaa looga hadlayaa xuquuqda aadanaha gudbinta iyo joogteynta. marka waxaan ka filanaynaa anaka inaan ka faa'iidino waxyaabo badan oo aanan hore u ogeyn amaba aanan ay dadka qaar aysan ku baraarugsanayn. saddex cisho soconayo waxaan rajaynaynaa inaan cilmi kala tagno iyo aan wax ka kororsano. sidoo kale waxaan rajaynaynaa waxyaabahan ka kororsano inaan halkan uu kaga tagin aan ku dhaqano wasaaradihii ama institutionadii kale aan ka nimin aan uga faa'iideyno. waxaan kaloo rajaynaynaa in aan maxay toolay shirarkan oo kale naloo qabto oo la joogteeyo mid hal bil ama hal maalin ama sanad ku kooban oo aan laga dhigin oo la soo celceliyo si ay dhalinyarada gobolka ama bulshooyinka kaleba ay wax uga faa'iido. waa ognahay bulshadeenu human rights ama xuquuqda aadanaha wax badan kama oga. dadka qaar hadda weydiisay xuquuqda ay leeyihiin iyaga laftooda ma sheegi karaan. marka waxaan rajaynaynaa in la balaariyo mashruucan oo tala bixin badan la siiyo dhalinyarada iyo dhammaan bulshada kala duwan. insha Allah waxaan rajaynaynaa anaguna kuwii wax wanaagsan kala taga dadkana maxay toolay gaarsiiyo ee uga faa'iideeya inaan noqono maasanta. agaasimaha waaxda maaliyadda iyo maareynta Maxamed Xuseen Maxamuud oo u mahadceliyay dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyo macallimiintii kale ee tababarka bixinayay ayaa la dardaarmay isagoo dhanka kale ka warbixiyay waxa uu daaran yahay seminaarka. cid kastoo barnaamijka soo abaabushay ka qaatay aad baan ugu mahadcelinaynaa. waa barnaamij wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka ay soo waday muddo iyadoo taakulayn ka helaysa wasaaradda haweenka ee federaalka iyo hay'adda UNDP. 2019 barnaamijyo fara badan baan soo qabanay oo bulshada dan u ahaa oo barnaamijka xuquuqul insaanka iyo horumarinta haweenka iyo waxyaalaha noocaas oo kale laga hadlayo. kana insha Allah taala isaguna kuwiyo kala daba socda markasta xuquuqul insaanka dhicitaankiisa iyo say ribada uga bixin lahaayeen ama ay u qaabili lahaayeen oo ay u noqon lahaayeen dad hawlanka u dhiiraday إن شاء الله دي يراهدو maadaama nahay shaqaalihii wasaaradaha waa inaynu mar walba u diyaar garownaa waxyaalo fara badan oo inoogu imanaya shaqada ama aan kula kulmayno jidka ama aan kula kulmayno xaafadaha dhexdooda intaba. barnaamijka xuquuqul insaanku waxa weeyaan waa qofka baahida uu qabo qofka in loo daboolo. tusaale ahaan kale goobta aad joogto wixii ka jira inaad adigu mas'uul ka tahay oo wax ka qorto oo form ka buuxiso oo u doodo. ugu dambeyn waxa uu u sheegay dadkii ka faa'iideysanayay inay lagama maarmaan tahay in cilmiga ay kula noqdaan goobahooda shaqada. barnaamijkeenu uu noo furan yahay. waxaan rajaynaynaa inta uu socdana in lagu dadaalo sidii cashiradan talaata loo qaadan lahaa waxaana looga faa'iidi lahaa maadaama oo aynu joogno goob bulshadu ay u soo aroorayso ama bulshadu baahi mar walba ay u qabto waa inuu wacyiga ku dhisan yahay adigana. haddii aadan wacyi lahayn aadan wacyi gashanayn bulshadii aad u shaqaynaysay waxba ma fahansiin kartid waxba ma qaban kartid. waa mahadsantihiin. Cabdullaahi Xuseen Kilaas telefishinka caalamiga Ariel Kismaayo.